lagu yiri Hargeysa iskaga tag wiilkana sayna gabadh lama kala furin waxa la kala furay ma waxa la leeyahay Muqdisho ku noqo isagana waxa laga tuuray Malaysia la geeyay sababta sanadkii waxa jira waxa la soo saaray lottery waxa lagu yiraahdaa soo noqon qayrka waxa tagay qayrka way dhinteen ama way nool yihiin jidka marba jidkii siraad marba lagu yiri marka reexamarku hadayna aqoonsiga keenay haddaba waxaan doonayaa warbixinta inaan wax yar niga faaloodo waxa jirta walaalayaal dadka dadweynaha ama dadkoo dhan warar isla dhex marayaan qaarna ay xaqiiqiyin qaarna ay run been yihiin anu intaan koogahay ni sheegaya intaan koogahay ayaa wallahi ni sheegaya boqorada isteelka iyo horta ay kal mayna kala tagin ismay furi laakiin dhibaato yar ayaa dhacday ninka haykal la yiraahdo Xasan Sheekh markii uu ku dhawaaqay aqoonsiga uu diiday Soomaaliland reer Hargeysa oo dhan gabadha saas oo soo eegeen ila kaligeed baa reexamar dhex maraysa magaaladii oo caana sababtoo gabadhani boqorada isteelka inta badan ma soo baxdo boqorada isteelkuna waxay isku bahdishay guri waxay tagtay wiilkii ay dhaleen وحافظي ولي بريسكي كحونا يهويدي أبي ويل شقيستي أمي تكي يدل بريسكي حافظها أمي لم يسطي والشاكدو مركي ويلكي يقبردو قريس كوصو بحان بنانا ويل كبردو وشقيستو مركا سوقف كوسكياني وحي نقطي حسن شيخنا بخونا واقعي أغوان سكيبان ديدي جب قبردو يرى وحي صوت دوبتي انتي صوقش اللايف على وهين قفكي قرانيا أيا قرانيا ننكرنا وحبا لغا توريبا إلا إيو ماليزيا لغا توري فيلكي سنة مركي وحمر تشوغا أيا لوسمي باسبور صومالي oo lagu yiri meesha iskaga carar meesha hadaba boqorada isteelka maxaa Hargeys maxaa ku soo celiyay Muqdisho iyadoo la guursaday oo la yiri ninkaaga la dag Hargeysa la dag maxaa ku soo celiyay Muqdisho warbixintan ku haya hadaba boqorada isteelka ninka waxa lagu yiri haduu Hargeysa sii joogo gabadhiina way joogaysaa isaaqu markaa dhaka ayay sameeyeen xafada wiilkana ka soo jeedo dhakay sameeyeen wiilkan seenu masaafurina oo wadankan uga saarnaa Turkiya haduu tago waa laga daba tagayaa laakiin Malaysia hadaan geyno qaxootiyadaas iska dhiibaya ama marka la isloobabu soo noqon doona adigu arrinkiisa fiisa lagu jeedo soo noqonayo iyo soo noqon waayo waa saasa la leeyahay laakiin isagu sida la sheegayo gabadhan darteed ayuu uga baxsaday wallahi inaan been sheeg hadalkaas haduu been noqdo waliga hay rumaysi sababta boqorada isteelka gabadh ka fadhiitan ilaahay ma abuurin laakiin boqorada isteelka adeerkeed buu ilaahay dhagax ka dhigay waxa la islaha dhalinyartan marka ay iskuursato adeerkeed uu naxaya aqoonsi ayuu Soomaaliland ku oranaya waan inay aqoonsaday reer Soomaaliland sax bay bilaabayaan heesi Soomaaliland baa la geeyay meel kasta ayaa la shidi Xasan Sheekh ma koray Mareykan Washington bay tagto waxay tirun aqoonsi ma ogoli bul oo qaraxay itiraafka marka isaaqu itiraafka aad buu jeceliye laakiin qofka diida waa halis weey isag waxa soo qabanaya isag marka aad qabanaya dadku isku iyo cadaynta ayaan ku hayaa soo dhawdaay مريم والله ساقو قبلها مو عين نوغا ريبن inay aqoonsi nabi naga rabaan gabdhaha warbixinta daayiro say igu soo gaadhay ninka Xasan Sheekh wuxuu ku dhawaaqay inuu Soomaaliland aqoonsi siinay gabadhiina wala idin soo xigtay bisha la keenay gabadha ayuu wareey nimanku hadaa maxaa la sameeyaa dadka marka in la caburiyo Soomaa sababtoo nimankan sida wax ku keenayaan dadkiina in caburiyaan Soomaa ama inay kaadida ku dhajiyaan Soomaa gabadha ma soo furay gabadha may furay laakiin waxa ku dhaay Muqdisho ku noqos kaga tagay magaaladii gurigiina waxa la sameeyay wiilkana waxa ku tuuray Malaysia ayay ku tuureen
ما soo noqonaysaa Hargeysa dambe marka Ilaahay baan kugu dhaariyay waxaas macaqli baa Ilaahay baan kugu dhaariyay dadka maxaa ka qabta dadka maanta qabsanay soo abgaal Soomaa iyadu soo abgaal Soomaa in lagu dhawaaqa aqoonsiga Soomaa si dadku isku dhex galaan oo isku guursadaan Soomaa gabadha baalkeed yarka ma taqaana karaabaysatay mustaqbalka raasaniisa iyo Xasan Maxamuud maxaa ka gaar warniyo reeqooyigiina niyo qaadka cuntaan waa nuuce which kind of qaad cuntaan ya ma wallahi qaad warma isaaqu waa nimanka qura ee aqoonsiga ku dhinta way iska daayaan naf bilaadan wallahi way dilayaan hadii waayaan ma baalkeena aqoonsiga raadinaysid damay dadkiina isdhex galaan oo la iskuursado soo madoonaysiin oo ciyaal la iska dhalo marka hadii ciyaalkii haday bari yimaadaan maxay sameynayaan hadii gabadhan ay bari ku Hargeysa ku dhasho ciyaalkaas maxaa la odhanayaa hadhow soo isaaqow ciyaal gabadh weynay haysaa ka xishooda soo lama odhanayo intayna dhalin ayay isaaqu ka fikireen oo gabadha tuureen wadhanka wax loo maska marka isaga Malaysia ayaa hadda lagu tuuray iyadoo Muqdisho ayay ka ooyeysaa laakiin laba mid ayaa idin furan kaliya waxa idin furan in nimanka isaaq la heshiiyo si dadku isku dhex galaan nimankiina hawiya maanta ugu dhow oo xilkii haya nimankan in si nadiif la yiraahdo sababtoo cid kale maanta u dhaqdhaqaaqaysa aqoonsiga ma jira isaaq mooye nimankii bulshada way seexdaan dhulbaantay iska daawarsan gali kuma jiraanba kaliya iyaga ayaa god kasta galaya marka xaqooga in la diido iyaguna inay soo dhaweystaan dumarkii ka imanaya xadar oo yiraahdaan kaale waan is guursanayna aan is dhex galno marka dadkii maxay ka indhihii baa soo jeesatay way iska soo baxsatay meeshii Hargeysa wallahi billahi طلع وحوالنا كشيكيرسا ما هو والله ودب ويان وانا arki doonta waliba taano aan maqlay warqada Muqdisho ayaa looga soo dabadirayaa haday been noqoto waliga yahay rumaysan aniga hadii la soo gabadheena qurxoonina hawiyaha noo guursanay heli kara taas dhalinyartan jacayl baad isu guursatay ma aha qofku markay jacayl isu guursadaan mar kale way kala duwan tahay jacaylka soo socda ka daraa doono ka soo socda hawiyaha kaasa ka daraa doono habargeeri abgaal jacaylkooda ka daraa doono kan Ciise Muuse waan eegna wiil habargeedina oo laba xaliyooda oo waraas ma taqaana 9 qof soo dilay oo indhiyo cascasiin oo Ilaahay baan ku dhaartay aan agtiisa soo mari kara gabadh guursanay boqoran dadka tumaande wiil inda cascas anaga xagga gabdhaha waxa lagu siiyay imsa qof soo dishay kan wiil waxba dilay hadda waa dhalinyaro inta dilay sababtoo Hargeysa ku dhashay Hargeysa ku soo barbaaray laakiin kaala mid aan weydiinaya wax dil ma yaqaan maxay wax ma dil yaqaan war waligi abtiyas dadkiisu baa wax dili jiray laakiin isagoo Hargeysa ku dhashay waa waligi qori dhacaya maarag xaq wax ka dilaya qori dhacaya maarag dima waxba dili karin gabadheena guursan